السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصومالي وين وايد السلام ميل والبات شوكتان وعبد محمود قلع يا برنامج كيدين كيمان جيري معهد كنبضة يا بلشدة walaalyaal sida aad la socotaan barnaamijka mararka qaarkood waxaan ku soo qaadnaa qoraalada ay sameeyaan dadka Soomaaliyeed oo ka hadlaya arrimo khuseeya ama dan u ah ummadda Soomaaliyeed. Arrintaas waa muhiim sababtoo waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan waxa dadkooda aqoon-yahanka ay qorayaan ama ka hadlayaan waa laga maarmaan. waxyaabaha mararka badan waxaa lagu soo gudbiyaa ama lagu qoraa afaf dad badan oo Soomaaliyeed runtii aanay awoodi karin inay akhriyaan ama aanay helaynba oo meelaha laga yaabo inaanay aadinba meelaha lagu soo gudbiyo. marka waxaan door bidaa markaan arko wax runtii macno weyn leh inaan idin la wadaago oo afkiina idinku sharxo intii karaankaya. maanta waxaan idin hayaa qoraal uu sameeyay dad Soomaaliyeed ay sameeyeen magacooda ma aqaan waxay isku magacaabaan isha qarsoon waxaana lagu daabacaa website-ka la yiraahdo wardernews.com ayaa lagu daabacaa. dadkaas waa dad aqoon-yahan oo Soomaaliyeed laakiin doortay inaanay is sheegin kaliya ay isugu yeeraan isha qarsoon laakiin wax walba daawanaysa wax walba eegaysa. waxyaabaha halka ay ku qoraan runtii waxyaabo aad ii soo jiita mar walbana waan akhriyaa sababtu waxa weeye waa dad aqoon u leh oo waxa si ajaa'ib u la fagurayo oo faham dheeraada u leh arrimaha. marka wax badan baad ogaanaysaa oo ka faa'iideysaa waxayna waxa u sameynayaan inay dadkooda ama baraarujiyaan ama wax uga digaan ama ma garanaysaa ay wax u faa'iideeyaan. isha qarsoon waxyaabaha ay qorto runtii waxa weeye wax lagu mutaysto abaalmarin weeye runtii iyo aqoonsi. yani adduunka dadku qiimeeyaan danaha wadankooda waxyaabaha caynkaas oo kala dadka qora oo soo bandhiga iyo ma garanaysaa hay'adaha warbaahinta soo bandhiga runtii abaalmarin iyo aqoonsi bay helaan. laakiin inaga taas waa inagu yar tahay runtii laakiin kolleyba waa arrin taariikhdu xusi doonto. maqaalka isha qarsoon ay qortay wuxuu u qaybsamaa 3 qaybood wuxuuna ku saabsan yahay heshiiska batroolka ee Soomaaliya iyo Turkiga ay wada galeen. 3 qaybood ayaa marka uu u qaybiyay maqaalka dheer. qaybta koowaad waxay ka hadlaysaa sida Soomaaliya runtii yani awoodeedii iyo dawladnimadeedii oo dhan ay uga tagtay oo shirkadda Turkiga ay ugu wareejisay. waadna arki doontaan waan idin sharxi doonaa. qaybta labaadna waxay sharxaysaa sida Soomaaliya ugu dulman tahay faa'iido wadaagga say ugu dulman tahay ayay sharxaysaa. qaybta saddexaadna waxay shaki gelinaysaaba heshiiska la siixay laftiisu inuu sharci yahay. taa lafteedana waa sharci doonaa. marka 3 qaybood mid walba video baan ka samayn doonaa sababtu waxa weeye wax waa dheer yihiin hal video laguma soo koobi karo wax badan oo ay tahay in la faguro ayaa meesha yaala. videoguna wax laga yaabaa inuu xoogaa dheeraado marka waad u dul qaadanaysaan sababtu waxa weeye arrimaha meesha ka buuxa ayaa arrimo u baahan in runtii xoogaa waqti dheeraada la siiyo. anu badanaa waxaan isku dayaa inaan videoyadaadi ku soo koobo 10 daqiiqo iyo 12 wax la mida laakiin kan waxa laga yaabaa inuu 15 18 qaato waa suuragal weeye. waxaan idinka baryaynaa barnaamijkan bilaabaya laakiin waxaan idinka codsanayaa inaad barnaamijka taageertaan oo like iyo subscription ku samaysaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. haddana waa gudagalaynaa qormada koowaad oo ku saabsan oo ciwaanka looga dhigay facts and figures who really controls Somalia's oil and gas. wardernews.com ayaa lagu qoray. arrintaani waxay sheegaysaa marka xaqiiq ku saabsan iyo ma garanaysaa nambaro la soo bandhigay oo muujinaya cidda runtii hawshaas awoodda ku leh awoodda sare. marka wuxuu yiri halkan oo uu ka hadlay dabaaldegii dhacay. dabaaldegga wuxuu yiri runtii ma mudnaa inuu dhaco waayo markii markabkaas tagay Soomaaliya waad ogeedeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse iyo wasiir Turkiga ka socda iyo madax kale oo badan inay halka tageen. ninkan wuxuu yiri ama gabadhan qofka qoray isha qarsoon qofka Soomaaliyeed markii dabcan waxa soo kala ay imanayaan khayraadka wadankooda la soo saaray dadka Soomaaliyeed inay dabaaldegaan waa arrin mudan buu yiri. laakiin tani buu yiri runtii mid dabaaldeg mudan ma aha buu yiri. sababtuna wuxuu ku sheegay
oo uu ku yiri in wax walba maaragtay Turkiga loo gacan geliyay wuxuu yiri markii ninka Turkiga uu ka soo tagayay wadankiisa wuxuu sheegay goolkiisu inuu yahay inay Turki noqoto ma garanaysaa wadan runtii isagu awood u hela inuu xagga awoodda shidaalka iyo wixii la mid ah runtii u madax banaanaada iyo in khayraadka halka ka soo bixi doona lacagta ka soo bixi doonta ay buuxin doonaan khasnadaha dawladda Turkiga marka arinta koobaad wuxuu yiri horta the nature of the instrument marka hore sharciga aan eegno qaabkiisa iyo wuxuu yahay agreementigan buu yiri ama sideedaba wuxuu yiri markii agreementigan buu yiri runtii ama heshiiskaanu ma aha mid qaab wada shaqayn leh buu yiri marka wuxuu yiri markii heshiis la sameeyo badanaa heshiisyadaas waxay qaabaan ama meesha keenaan mabaadi lagu wada shaqayn karo oo labada qoloba u cad oo danahooda daryeelaya laakiin kan waxa muuqata buu yiri in danaha Turkiga runtii uu maaragtay daryeelayo oo kaliya afar qodob buu yiri marka ayaa markii horeba arinta sida hawsha noqonaysa go'aan ka gaaray buu yiri oo wax walba Turkiga siiyay mid waxa weeye buu yiri exclusivity Turkiga in wax walba iyaga la siiyo oo kambaniyal kale oo la tartamaya iyo cid kale oo arinta kala qayb qaadanaysa aanay jirin cost recovery ceiling iyo in ma garanaysa lacagta ay la soo noqonayaan iyana ay tahay lacag fara badan mararka qaar koodna aanay inkastoo la yiraahdo boqolkiiba 90 mararka qaar koodna meelu inoogu sharxi doonaya waxa ay dib ula soo noqon doonaan ama kharashka ka galo ay la soo noqon doonaan runtii uusan xadidnayn laakiin hadda boqolkiiba 90 la yiri bay helayaan waxa kale buu jira buu yiri wax la yiraahdo royalty wax weey hadii shidaalka la soo saaro la iibiyo lacagta ka timaado in dawladda Soomaaliyeed ay wuxuun ku yeelato iyo bonuses wax la yiraahdo bonuses-kuna waxa weey iyaguna waa bakshish la bixiyo markii heshiiska la galayo waxyaabahaas oo dhan waxa weeye iyo assignment rights iyo cidda waxaan runtii maaragtay iska leh oo maaragtay loo xil saaray iyo waxa ka dhalan kara hadii sharciga la bedelo hadii company-gan iyo Soomaaliya is qabtaan ama company-gu shuruudihii uu buuxin waayo ama dhibaatooyin dhacaan waxba dawladda Soomaaliyeed sharci kama soo saari karto haday ka soo saartana way inoo sharxi doonaa cawaaqibka ka dhalan doona iyo wuxuu sheegay in faa'iido qaybsiga lagu koobay maaragtay oo lagu qaybsanayo waxa loo yaqaan downstream negotiation downstream-kuna waxa weeye shidaalka sidiisa wuxuu leeyahay saddex qaybood upstream middle stream iyo downstream upstream-ku waa baaritaanka iyo waxaas iyo sahaminta middle stream-kuna waxa weeye storage-ka iyo waxa iyo waxyaabaha aynkaasa downstream-kuna waa meesha hoose oo maaragtay qofku uu gas stationadii iyo waxaas meelaha ka gadanaysid marka faa'iido qaybsiga waxaad moodaa inuu halka uu yahay buu yiri waxa la siiyay buu yiri ama document-kan wuxuu marka u ogolaaday shirkadda Turkiga runtii waxa weeye yani wax walba faruhu ka saaray ayuu leeyahay isagu arintaasina arin caadi ah adduunka ma aha waxay Turkigu leeyihiin ayagu inay go'aan ka gaaraan maaragtay wax kasto ay rabaan inay sameeyaan wax waajibaad sharciya ama maaragtay oo meesha ay qodayaan wax kharashka ay marinayaan kharash gareynayaan siday wax u qabanayaan wax sharci oo xadidaya ma jiraan heshiisku wuxuu soconayaa biiro muddo 5 sano ah si automatiga ama maaragtay aan shuruudo ku xirayn ayaana loogu cusboonaysiinayaa 3 sano 5 sano ka bacdi 5 sano 3 sano waa iska cusayb bay noqonaysaa haddii aan dawladda Soomaaliyeed 6 bilood ka hor dawladda Turkiga aanay u gudbin codsi ah inay dawladda Soomaaliyeed doonayso in heshiiska dib looga wada hadlo haddii dawladda Soomaaliyeed ay iska mashquusho ama aan cududanayn 3 sano waa isaga darsoomaysaa automatically marka wuxuu yiri ninkan runtii ama qofkan halkan qoray isha qarsoon waxay tiri taam macnaheedu waxa weeye buu yiri in action is renewal haddaan dawladda Soomaaliyeed aan tilaabo qaadin
arrintaas waa cusboonaysiin. marka wuxuu yiri shirkadda Turkigu yacni khayraadka shidaalka Soomaaliya oo dhan ayay iyadu si buuxda gacanta ugu haysaa buu yiri, si buuxda ayay gacanta ugu haysaa. taa macnaheedu waxa weeye meesha rabtay wax ka qodi kartaa, meesha rabtay wax ka baari kartaa, waxay rabtay ku samayn kartaa, wax la weydiinayo iyo wax lagala hadlayaa ma jiraan. dadka Soomaaliyeed markii arrintan kaliya waxay maqleen 90% ayay Turkigu qaadanayaan faa'iidada meesha ka soo baxda oo ay u qaadanayaan inay la soo noqdaan kharashkii ka galay. dowladda Soomaaliyeedna 5% dad badan baa arrintaa ka xanaaqay, dad badan waxay yiraahdeen ma waa saxanta arrintu. wax information kale oo dadka Soomaaliyeed aan hayaan oo inta aanay ka ahayn ma jiro, laakiin wax ballaaran ayuu maaragtay barnaamijkan ka hadlayaa oo arrimahaas dhaafsiisan oo ku saabsan waxyaabo kala duwan oo fara badan. marka wuxuu ka barbar dhigayaa heshiis waxa jira la yiraahdo heshiiska batroolka dowladda Soomaaliyeed ay samaysay waagii farmaajo 2020 la sameeyay oo lagu aasaasay company la oran jiray Somali Petroleum Authority oo ma garanaysa ahaa cidda u xil saaran inay shidaalka Soomaaliyeed cidda qodaysa iyo ma garanaysa cidda soo saaraysa ay soo xulato oo la macaamisho oo ma garanaysa ay la samayso ay wada xaajood. taa meeshii waa laga saaray, waxba shaqo kuma laha. dowladdu arrintaa waa bedeshay sharcigan cusub oo Turkiga lala saxiixday. marka arrinta waaga waxay ahayd buu yiri oo u baahnayd in runtii loo furo kambaniyal kala duwan oo arrintaa ka qayb qaata oo u tartama oo markaa kii Soomaaliya ay u aragto inay dan ugu jirto ay ma garanaysaa ay siiso. waxyaabaha kale oo ka hadlay waxa kamid ah oo uu yiri heshiiskan waxa saxay ninkii waaga wasiirkii batroolka ahaa oo la oran jiray Cabdirasaaq Maxamed Cumar oo markaa hadda ma ahayn buu yiri laakiin markaa ahaa wasiirka oo markii dambe xafiiska laga qaaday. Turkigu marka wuxuu yiri waxay hawsha ama saxiixa arrintaas ay u ahayd iyaga buu yiri arrin istiraatiijiyad qaran leh ayay u ahayd. madaxweyne Erdogan ayaa u gudbiyay buu yiri heshiiskaas golihiisa shacabka oo ma garanaysa ama baarlamaankiisa sida uu qabo sharcigooda uu qabo qodobkiisa 9aad. marka golihii waa meel mariyay, golihii waa meel mariyay dabeedna madaxweynihii baa saxiixay. laakiin Soomaaliya sidaas ma dhicin, wasiir baa saxiixay, baarlamaankii wax kama ogeyn, ma eegin, kama faalloonin, kama baaraandegin, madaxweynihiina ma saxiixin. يعني سيدي شعب وها إن الله مر الله ما مريم بوليه. أنا ذا كلا وحويه وهو شيء يا وحويه وهل كان يري وحو كلا أي شيئين وتركي وشيء وأرنتا أي مارتي إن وقعد دارين أما أيوة كان إنه مهم متهاي وها كتير بالي الصوماليا صدّن بليون وفوستو وما قرنا يستا إن إيوه 6 بليون cubic meters of confirmed natural gas 6 بليون شدال بتروليا وحاسة إيوه 6 بليون ماركت natural gas أما gas كان وحلو كرصة لبداس بوكو تشيران بيري ماركا أرينتاس بيري waxay ka dhigaysaa mid u furaysa Afrika Turkigu marka waxay fahmeen buu yiri in Soomaaliya maaragtay ay runtii arinta ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato marka dhowr qodob buu halkan soo qaatay oo ah sida Soomaaliya ay xuquuqaheeda runtii uga hartay oo Turkiga ugu wareejisay midda koowaad wuxuu ugu yeeray Somalia surrendered the right to conduct competitive licensing sidaan idin sheegay waxaa jirta Somali Petroleum Authority oo loogu talagalay inay qabato tartamo cidda ugu habboon oo ma garanaysaa shidaalkeena qodi karta in la siiyo waxyaabo badan baa kambaniyasha lagu qiimeeyaa way aragnimada ay u leeyihiin lacagta ay haystaan expertise-ka iyo ma garanaysaa khibradooda waxyaabo badan baa jira mashaariicdu hore waaweyn oo ay soo fuliyeen
oo ma garanaysa ay ku guulaysa wax badan baa jira laakiin cidaaban weligeed la tijaabin ama xoog qaban haddaad iska siiso dee waxa weeye ama aan lacag wanaagsan haysan ama qalab wanaagsan haysan waa iska dhibaato sababto waxa qaar baa dulaaliina intay helaan hawsha bay kambaniyaasha waaweyn la aadayaan waxyaabahaas oo kale marka wax wanaagsan ma aha marka Soomaaliya marka iyadu waajibkii ahaa inay raadiso oo ama ay maaragtay tartan u geliso cidda hawsha qabanaysa faraxay ka qaaday shirkadda Turkiga ayaa loo madax banaaneeyay buu yiri practical consequences is permanent for the duration of this agreement wax kasta oo dhaca oo Turkigu sameeyaan buu yiri xilligii heshiiskan uu jiro wax ka soo qaad ma leh wax sababtu waxyaabaha uu ka hadlayna wuxuu yiri Turkigu goortay wax ku soo saarayaan ama aynka deadline male waqti loo qabtay male meelaha ay wax ka baari karaan xad male meesha rabaan oo Soomaaliya kamid ah wax ka baari karaan waxa ay soo saari karaan xad male inta ma dhaafi kartaan ma jiro agreementigu wuxuu soconayaa muddo 5 sano ah 3 sano ayaa mar walbana lagu darayaa shantu markay dhamaato Turkigu wuxuu yiri marka waxa loo madax banaaneeyay inay hawsha wadaan ma garanaysaa inta uu socdo hawsha oo aan waajib ka saareen buu yiri inay runtii wax xadidaya aan jirin waqti ah Soomaaliya buu yiri marka kambaniyaal kale ma marti qaadi karto oo ka qayb qaata inay shidaalka soo saaraan buu yiri hadday taas u dhacdo waxa weeye marka dhibaatay la kulmaysaa Soomaaliya oo waxa weeye Turkiga inay ku xadgudubto jabisi heshiiskii ayaa loo qaadanayaa buu leeyahay waxaana arrinta si adkeynaya buu yiri si murgunaya waxa loo yaqaano seismic exclusivity provisions sharciga siinaya inay u madax banaan yihiin yani seismic wax weeye waa raadinta waxa meesha ku jira iyo sidii loo ogaan lahaa culunta ku saabsan inay Turkigu iska haysanayaan hadii rabo dawladda Soomaaliyeed aanay waxba ka ogaanaynin imisa gaasa ku jira halka imisa sana lagu soo saar waxa laga yaabaa inay qarsoodi u noqoto oo dawladda Soomaaliyeed aanay waxba ka ogaanin marka iyada ayaa iskala buu yiri exclusive right to conduct a seismic acquisition yani inay la soo baxdo xogta halka ku jirta inay iyadoo process gareyso ay ma garanaysaa siday rabto ay maaragtay u maamusho iyo inay siday rabto maaragtay iyadu u turjinto tiraahdo intaas ku jirta ama aynka way ama kan way cid kale oo Turkiga kula tartami karta oo baaritaan sameyn karta sida Turkigu u sameeyeen ma jirto oo maaragtay heli karta xogta waxa hoos ku jira waxyaabaha la mid ah wuxuu kaloo sheegay oo qaybta kalena wuxuu yiri Soomaaliya surrendered control over previously licensed acreage Soomaaliya waxay dhiibtay dhul horey maaragtay loo bixiyay ama shidaal in kambaniyaal kale malaha ay ka baaraan la rabay ayay bixisay buu yiri Soomaaliya waxay ogolaatay buu yiri in ma garanaysaa ay bixiso laysinmo ah ama ruqsad ah in baaritaan la sameeyo oo batroolka Soomaaliya lagu sameeyo oo dhowr kambani oo kala duwan ayay siisay waxaana laga baari lahaa badda dhexdeeda iyo bariga labadaba waxa la bixiyay buu yiri 1990 ka hor iyo 2012 kadib dawladihii jiray ayaa bixiyay buu yiri oo kambaniyaal kala duwan u ogolaaday 1991 intii u dhaxaysay iyo 2012 intii u dhaxaysayna waxa jiray buu yiri dawladda Soomaaliyeed sharcigeeda batroolka ee 2020 ayaa nasakhay wixii inta u dhaxayay wixii la bixiyay waxba laga ma soo qaadin waa sharcigi hore oo batroolka oo 2020 la sameeyay laakiin wuxuu yiri heshiiskan hadda arrinta uu ka aamusay maba soo qaadin maba dhaxgalin buu yiri kaliya wuxuu siiyay ruqsad buuxda oo ballaaran ayuu Turkiga siiyay buu yiri marka waxa kaloo jira buu yiri waxa kaloo jira buu yiri inaanay jirin buu yiri xataa khilaaf haduu soo baxo si ma garanaysaa loo xaliyo oo dadkan Turkiga waxa la siiyay aanay maaragtay wax xadidaya aanay jirin
marka dowladda Soomaaliyeed buu yiri waxay bixisay ruqsad buuxda oo ay uga tanaashisay buu leeyahay khayraadkeedii maaragtay batroolka iyo shidaalka hadhowto wax la isku qabsadana wixii halka ka soo baxo khalada dowladda Soomaaliyeed ayaa qaadanaysa oo dusha u ridanaysa ayuu leeyahay ta kalena wuxuu yiri Soomaaliya surrendered the right to choose its counterparts Soomaaliya waxay ka gaabisay inay xulato ciddii maaragtay ay shaqada u dhiibi lahayd ama la macaamili lahayd sababtu waxa weeye wax walba waxa loo madax banaaneeyay company-gan Turkiga company kale oo soo gali kara ma jiro ayuu ina leeyahay marka dad baa waxay ku doodeen buu yiri in Turkigu uu yahay runtii dawlad lagu kalsoonaan karo oo walaal aan nahay oo dad wanaagsan inay yihiin oo marka in iyaga kaliya lala macaamilaa ay tahay arrin sax laakiin wuxuu yiri dood caynkaasi buu yiri runtii arrin sharciya ma ahan buu yiri sababtu waxa weeye buu yiri article-ka ama qodobka 4.3 ayaa u ogolaanaya buu yiri Turkiga wixii xuquuqa iyo dana ah iyo maslaxada iyo magarasa wax walba ah oo in iyada la siiyo buu yiri taasina buu yiri waxa weeye lama eegin buu yiri ma arintaasi ma haboontahay ma haboona without qualification waxa kale buu jira buu yiri inaan dadka Soomaaliyeed la weydiin oo Soomaaliya aanay ogolaan baarlamaankii lama geyn cid kale lama geyn dawladihii gobolada lagalama tashan waxa soo dhan ma jiraan marka ma jiraan buu yiri there is no restriction buu yiri on the identity of the assignee yani qofka waxa la siiyay wax dul saaran oo ma garanaysa in xadidaada ma jiraan buu yiri wax walba ayay Turkigu u madax banaan yihiin marka sheekada ah buu yiri waa maaragtay walaal lagu kalsoon yahay Turkigu runtii waxa weeye buu yiri arrin qeexaysa heshiis ah ama maaragtay xiriir ah buu yiri in Turkiga iyo kambanigooda shidaalku sida ay maanta u jiraan laakiin bari maxaa dhici kara maanta maybe inay yihiin dad aynu ku kalsoonahay saad sheegaystaan laakiin bari maxaa dhici kara Erdogan hadduu ka tago bari doorasho laga qaado meesha qofka kale oo Turkiga qabsada ma u maleynaysaa ama dawladda timaada inay noqonayso mid u dabacsan sida Erdogan oo kale ama u naxariis badan ama Soomaaliya inay kaalmayso waxa laga yaabaa inay inagu noqoto wareer ma naqaano oo ay hard ball la ciyaarto marka wuxuu diidayaa arrintaas ah yani wuxuu leeyahay wax cad oo sharciya in la sameeyo ayay ahayd in maaragtay trust iyo walaal fiican iyo waxaas wax soo gala ma ahan buu yiri heshiisyada caalamiga iyo sida dawladuhu ay u macaamilaan ma aha arrinta kalena waxa weeye buu yiri Soomaaliya waxay dhiibtay buu yiri the right to regulate without paying TPAO waa shirkadda Turkiga waxa la yiraahdaa Turkish Petroleum Corporation waxa ingaas oo kala waa afkooda weeye oo la soo gaabiyay marka dawladuhu sidoo wax way iyaga wax regulate gareeya yani kambaniyasha iyaga maamula sida hadda markay magaalooyinka nabadgelyada ay u regulate gareeyaan dadku waxay sameyn karaan waxaan ay sameyn karin khaladaadka ka dhaca sida loola tacaalayo maxkamadaha waxa sharciga waxa soo dhan tan meesha wax ka baxda wax kasto ay sameeyaan Turkigu wax sharciya oo Soomaaliya leedahay oo qabanaya ma jiraan baarlamaankan la horgeyn karin sharci baan la bedeli karin maxaan ku yiraahdaa petroleum agencies ama authority-gan soo dhexgali karin waxay rabaan ayay sameynayaan bulay marka arrintii regulation kuna meesha waa ka baxday biir wana khasaaro ayaa ugu sugan buu ku leeyahay Soomaaliya arrintaas waayo dawlad aan ma garanaysaa waxba ka oran karin waxyaabaha dalkeeda lagu sameynayo ama ka dhacaya taas dawladnimo ma runtii waxa weeye waa hawlgabnimo oo ma garanaysaa taas wax ma garanaysaa la aqbali kara maaha haddii aynu sidaa sameeyna buu yiri waxay tagaysaa ilayna dacweeyo oo marka Turkigu ayna dacweeyaan haddaynu wax bedelaba wuxuu kaloo ka hadlayaa yiri Soomaaliya surrendered natural venue and accepted one-sided ICSID exposure arrintan wuxuu ka sheegayaa oo iyana uu sheegayaa haddii dhibaato dhacdo ama la murmo ama wax la isku qabsado Soomaaliya awoodeedii oo dhan waa dhiibtay biiri
meel dhexdhexaadana uma dhiibin laakiin waxay aqbashay buu yidhi one sided ICSID exposure. shirkadaas ama waxaa loogu yeeraa ICSI waxa weeye oo loo yaqaanaa International Center for Settlement of Investment Disputes. badanaana waxay la saftaan investorka ama qofka meesha investmentiga ama maalgelinta gelinaya ayay la saftaan. dowladna ma aha oo maaragtay dowlad ma aha. marka arrintaas waxay muujinaysaa in Soomaaliya hoos loo dhigayo. waa sababtu uu leeyahay one sided. iyagu waxay un raacaan dadka investorska ayay raacaan. marka heshiiskaanu siduu qoraya buu yidhi Soomaaliya si shuruud la'aan ah oo aan laga soo noqon karin ayay ku siisay buu yidhi ogolaansho ICSID jurisdictions, yacni kuwaas sharciyadooda ayay ogolaatay oo kaasna ay ku timid buu yidhi doorashada ay dooratay shirkadda magaranaysa Turkiga ah. marka taasina waxa weeye buu yidhi meel u furan ama maaragtay daryeelaysa danaha dadka maalgashiga qaba Soomaaliyana ka soo horjeeda. ma ahan buu yidhi meel Soomaaliya danaheeda daryeelaysa ayuu ina leeyahay. marka Turkiga iyo shirkadooda petroleumku wuxuu yidhi laba meelood ayay iyagu maaragtay inaga dacweyn karaan. mid waxa weeye buu yidhi tan hadda aan soo sheegay oo ICSID, midna waxa weeye UNSITRAL oo iyana ah United Nations Commission on International Trade Law. taasina waa hay-ad kaloo iyana maaragtay wax dhexdhexaadin ama arbitration oo maaragtay UN-ta kolleyba hoos tagta sida magacu sheegayo. marka waxa weeye marna shirkaddu waxay inala aadaysaa shirkadahaas madaxa bannaan oo wax dhexdhexaadiya. haddii dowladda Turkigu soo faragelisana UN-t bay inala aadaysaa. marka meella inooma fayooba buu yidhi dhinac walba wax advantage baa laynaga qaatay. haddii maanta dowladda Soomaaliyeed ay tiraahdo waa ku dulmanahay heshiiskan dib baan u eegaynaa oo aynu baarlamaankeenu sharci sameeyaan oo constitutionkeena aynu dhahno heshiiskan qodobadaas ku xadgudba constitutionka waxba kama jiraan, laynaga yeeli maayo. weli waxa weeye shirkadahaas madaxa bannaan ayaa maaragtay aynu ogolaanay inay ay ina dul maraan oo iyagu ay awood u yeeshaan inay arrimaheena ay iska dhaafaan ama diidaan. Turkiga saasaynu ogolaanay. arrinta kalena waxa weeye buu yidhi Somalia surrendered by control over security operations on its own soil. tanna waxa weeye shirkaddan Turkiga ciidamay keensan kartaa, meeshay rabto ayay ciidamadeeda geyn kartaa, meeshay rabtay ka howlgeli karaan, qalabkay rabaan bay keeni karaan, waxay rabaan bay samayn karaan. Soomaaliya ma faragelin karto, ma baari karto, awood iyo control kuma leh, madax bannaani buuxda ayay haystaan ayuu leeyahay. marka awoodii dowladnimadoo dhan shirkadda ayaa lagu wareejiyey buu yidhi, waana wax la yaab leh buu yidhi arrintaas. wuxuu kaloo ka hadlay oo sheegay in ma garanaysaa xataa waxay qaban karaan aanay xal lahayn, meeshay rabaan tegi karaan, waxay rabaan samayn karaan oo aanay u baahnayn cidna inay wax weydiiyaan. arrinta kaloo jirtaa waxa weeye markay waxyaabaha samaynayaan kharashka waxay rabaan bay sheeganayaan without capping recovery costs. waxay rabaan ayay sheeganayaan. hadday dhahaan operationskaasi waxaa nooga baxay $10 milyan $2 milyanna uga baxday, waxba kama oran kara weeye. marka wuxuu yidhi Turkey may therefore conduct security operations within Somali territory at its own discretion. yacni waddankeena ayay ka samayn kartaa howlgallo iyadoo siday rabto, waqtigay rabto, meeshay dan moodo ayay ku samayn kartaa. yacni meesha waxaa ka baxayba madax bannaanidii iyo sovereigntigii ummadda Soomaaliyeed meesha waa ka baxday weeye. arrintan waxay xusuusinaysaa
waxaa jiray waxaan malaynayaa waxay ahayd qarnigii 19aad dhammaadkiisii Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa dowladda Masar lacag badan ku yeelatay marka hay-ad walba iyo meel walba iyo canshuur meel laga ururiyo dhaqaalihii meel kasta waxaa yimid niman Faransiis iyo magaranaysta Ingiriis oo wixii oo dhan qabsaday waa la cunaqabateeyay marka Masaarida way lacagtii iyaga urursanaya wadankoodii bayna u dirayaan marka wax lacag oo soo haray Masar ma jirto ciidamadii lacag ma siin karto dadkii ma horumarinta kama qayb qaadan karto tiyo kale ay xusuusinaysaa hadda tan inay yani free hand iska yeelato wax rabto Turkigu iska samayso waa wax runtii la yaab la weeyay marka wuxuu yiri oo ku soo gabagabeeyay maxaa u haray Soomaaliya what remains for Somalia when Turkey exercises what this agreement permits Somalia retains formal title to resources it cannot independently assess, cannot competitively license to others without legal risk, cannot regulate without compensation to TPA from its own resources, cannot litigate in its own courts. marka wuxuu yiri Soomaaliya waxba uma harin buu yiri sida sharcigan ogol yahay Soomaaliya cid kale uma yeeri karto oo maartay wadankii shidaalkiisii ma qodi karaan ma garanaysaa waxba ma regulation ma samayn kar ama waxba ma maamuli karto iyadoo aan magdhow siinin yani hadday dawladdu isku daydo inay wax samayso waxa Turkiga baa dacweynay shirkadoodii waxay leeyihiin qalad baa lagu sameeyay marka waa inay magdhow siisa buu yiri oo laga siiyo wixii lacag aynu ka helinahay shidaalkaas dawladda Soomaaliyeed buu yiri dacwad ma gali karta buu yiri oo ma garanaysaa maxkamadaha dacwad kama furi karto shirkadda ka soo horjeeda dhibaatooyin badan baa inoogu sigan buu yiri waxay kaloo shirkadda Turkigu dooran kartaa ama xulan kartaa buu yiri meel kasta oo ay rabto inay wax ka baarto ayuu sharcigu u ogol yahay buu yiri waxayna xaq u leedahay oo xaq loo siiyay inay iyadu iska lahaato ama ay maaragtay gacanta ku hayso waxyaabaha sub service-ka ah waxa dhulka hoostiisa ku jira halka ku jira waxay rabaan ha noqdeen iyada maaragtay loo siiyay buu yiri waxa kaloo jira buu yiri inay maaragtay ka qayb galin karto ama cid kale ay siin karto buu yiri iyadoo aan dawladda Soomaaliyeed idan weydiisan kambaniyal kale u yeeri kartaa waxay oran kartaa baara halkaas ciduna maaragtay kalama hadli karto idanna uma baahna already waa la siiyay idankii marka halkan uu soo gabagabeeyay wuxuuna yiri agreementiga buu yiri preamble waxa way waxyaabaha aragtaaga ku horeeya agreementiga marka la saxiixay la qorayo wuxuu si cad u sheegay buu yiri in kheyraadkan ummadda Soomaaliyeed leedahay marka xaqiijinta ama taal cadeeyay waa sax buu yiri laakiin inta kama badna sababtu waxa weeye buu yiri operative professionals ama sharciga lagu shaqeynayo lagu hawlgalayo dhan article by article transfer every right economic operational of economic and operational significance attached to that title to the Turkish company iyo hawlihiis yani wax kasta oo kale iyaga loo madax banaanay kaliya waxa weeye waxaynu waa hadal kheyraadkaas ummadda Soomaaliyeed baa leh waana inay ka faa'iid bas laakiin runtii ummadda Soomaaliyeed kama faa'iideysanayso sida hadda heshiiskan qorayo awoodna kuma leh meesha waxay rabaan bay Turkigu samaynayaan waa loo madax banaaneeyay sharciga la qoray ayaa u madax banaaneynaya oo ka tilaabsaday sharcigii hore ee batroolka ee Soomaaliya sharci hore jiray kii hore waa laga tagay kana loo qoray marka kan waa mid aad iyo aad Turkiga u daryeelaya oo la leeyahay waa walaal fiican oo lagu kalsoonaan karo xabiib oo xalaal ah marka waa inaynu waxay rabaan u sameeyno wuxuu ku soo gabagabeeyay runtii in maaragtay Soomaaliya ay ku dulman tahay inkastoo Turkiga laga yaabo inay arinta ay daacad ka tahay oo ay rabto inay maaragtay wax wada qabsi Soomaaliya loo yeelato haddana in maaragtay arintaasi aanay marnaba arin habboon ahayn oo daryeelaysa danaha ummadda Soomaaliyeed ayuu ku soo gabagabeeyay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadka qorayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyaguna runtii wax fiican bay isku dayeen ummadda Soomaaliyeed inay maaragtay wargeliyaan oo at least waxa jira u sharxaan ayaa loo baahan yahay sababtu waxa weeye waxyaabo badan oo halkan ku qoran dadka Soomaaliyeed war kama hayaan dadka Soomaaliyeed kaliya waxay hayaan 90%
ayay faa'iidada qaadanayaan Turkigu laakiin waxyaabo badan oo kale ayaa halkan lagu sharxay oo ku saabsan xagga sharciga ma garanaysaa khayraadka Turkigu waxay ka samayn karaan waddankeena iyo waxyaabo kale oo badan marka walaalayaal intaasaan kusoo gabagabaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin hana iloobina barnaamijka inaad taageertaan oo ma garanaysaa aad subscription iyo like ku samaysaan sidaa iyo nabadgeliyo